ciidamada dalka Hindiya oo muddooyinkan baa howlgalla qarsoodiya ku jiray ayaa la sheegay inay dabagal iyo baadigoob ugu jiraan xawayaan qarniye jiray oo ku nool silsilada buuraleyda ee Himalaya. ciidamada sida gaarka u tababaran ee buraashadleyda ee buuraha fanta ee dhulka barafka ka howlgala ayaa la sheegay inay iyagu raacdo dheer u galeen soo helitaanka xawayaan la yaab badan oo ku nool buuraleyda Himalaya. haddaba asbuucan ayaa ciidamada dalka Hindiya waxay dunida uga yaabsadeen iyagoo si rasmi u soo bandhigay jiritaanka xawayaankan oo loogu magac daray Yeti oo isagu ka tegay raadad waaweyn. xawayaankan ayaa la sheegay in dhererkiisu uu dhan yahay 3 mitir, waxaana la sheegay inuu meel ka shabaho dadka bini'aadanka oo xawayaankan uu istaagi karo, socon karo, waxaana la sheegay inuu leeyahay bulbul iyo weliba aragiisa oo si weyn looga argagaxayo. xawayaankan oo dadka buuraleyda ku nool ay u yaqaanaan Yeti ayaa sheekooyinkiisu muddo qarniya waxa ay ku dhex jireen iyadoo kumanaan sheeko laga sameeyey dadyowga ku dhaqan buuraleyda Himalaya ee u dhaxeeya dalalka Hindiya iyo China. xawayaankan Yeti ayaa iyagu dadku ay qaarbasi ku sifeeyaan isagoo la sheegay inuu leeyahay shakal argagax leh oo uu istaagi karo sida dadka bini'aadanka. dadka qaar ayaa isweydiinayeen xawayaankan ay noqon karto daabadda imaan doonta qiyaame oo isku qarinaysa buurahan iyagu dhererka badan ee Himalaya. ciidamada dalka Hindiya ayaa hadda cagta u saaray inay soo helaan xawayaankan loo yaqaan Yeti, waxayna saldhig ka dhigteen buuraleyda iyadoo dhererka badan ee Himalaya. waxaaba la sugaaba waxa weeye natiijada ka soo bixi doonta raacdadan dheer ee ciidamada dalka Hindiya hadda ay galeen. like oo la wadaaga asxaabtaada.